نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والله ليال نفتي نفتي نبأ حندر دار ما هي عبسيد الله سبحانه وتعالى عبسيد الله ومد إله سبحانه وتعالى ونفري إن كعب صرنا هذه الشر ميل والبون شوقنا يوقت والبون شوقنا روح إنه إله سبحانه وتعالى عبسيديسه وهذه الشر قلبي سيكوشرت إلهنا سبحانه وتعالى إن بدن بو نفري القرآن كان نقول فري آيات كصدق آخرين النبي كم إذا إله سبحانه وتعالى وحبضن ونعمري إله سبحانه وتعالى وصيدي ومضان يوم ذي كوريسي وودر دارمي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ومد بدبادة الدنيا مد آخرة ويكوشرته هذه الشيء مركب عبسدا الله سبحانه وتعالى إن ليسوا دردارمه هو شيء مضن دردارن كالنبي عليه عليه الصلاة والسلام حديث النبي عليه الصلاة والسلام من بدن كدر دارمي مناسبات كيماشة ميلا للسوق إماضة أما وعد أما معناه كلمة النبي كتشيدين هيو أيوه مرين شرع عليه الصلاة والسلام حيا الأعماش إلهي كوهاجي سبحانه وتعالى ذنوبته يا لقود ضعفة الضونك أيوه إلهي سبحانه وتعالى وحقوق أقبله ما لنت قيامة لقود بدبادة فوائد فربضن بإلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس كريم كان نوغو شاقي سنة النبي كان نوغو شاقي عليه الصلاة والسلام نفتي نو مركتاسا ودردار ما هي وانا اوامرت الهي والله قاطه oo la imtithalo oo ruuxu ku dadaalo u dhaw nuglaado iyo waxyaalo ilaahay reebay subhanahu wa ta'ala oo laga haro inta kadib waxaan rabaa insha Allah hadii ilaahay yiraahdo kelimo iska gaab iska kooban oo ku saabsan siyaamka ama soomka iyo aadaabtiisa inaan wax yar insha Allah ta'ala ka yiraahdo xadara la logtiin dhamaantiin bishii barakaysnayd oo shahr ramadaan ahayd oo ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankan kariimka uu soo dejiyay inay foodan ugu soo hayso maalmo naga xigaan aad u kooban bishaas waxa loo baahan yahay ruuxa muslimka ah sida ugu wanaagsan oo ugu qiimaha badan uu uga faa'iideysan karo inuu uga faa'iideysto maxaa yeelay waa fursad qaali ah oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda uu siiyay waa nicmo cadiim ah aad u weyn nicmadaas hadii laga faa'iideysan waayana ruux waxa weeyaan uu ka shalaayay maalinta qiyaamada waxa loo baahan yahay marka nimadaas inay si dheedheel kugu dhaafin si sahlan ruuxa muslimka ah sida ugu wanaagsan oo ugu qiimaha badan uga faa'iideysan karo inuu uga faa'iideysto taana waxay ku imaan kartaa ruuxu inuu ogaado bishan Ramadaan fadliga ay leedahay iyo qiimaha ay ku fadhido thawaabkii ajirka cadiimka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka macnaha dejiyay ahkaamtiisa inuu barto iyo macnaha waxa loo baahan yahay inuu ruuxu ku dadaalo aadaabta laga rabo waxyaalahaas oo dhan inuu cilmi u yeesho maxaa yeelay hadduu waxyaalahaas oo dhan uu ilaaliyo ajarkaas iyo fadligaas iyo wanaagaas ayuu ka helayaa haddii laakiin ruux ahkaamteedii uu ku tunto aadaabteedii uu haleeyo soomkii sharciga ah uu waafaqi waayo soomku dib markaa waxa weeyaan ajarkii laga rabay iyo fadligii la raadinayay iyo anfici uu ku afeelaha bisha ay ku anfeelahay wax badan baa iska dhimahaya waxa laga yaabaa inaad waxba ka helin sidaa darteed soomku waa inuu noqdo soom sharci ah ahkaamtiisa waa in la barto aadaabtiisa waa in la barto si ilaahay subhanahu wa ta'ala ajarka faraha badan oo ku sheegay loo helo taas ayaan rabnaa marka insha Allah ta'ala inaan wax yar iska baraarujino fadaayisha soomku uu leeyahay iyo aadaabtiisa iyo soomka waxa la yiraahdo sidiisa waxyaalaha la rabo in laga dhowrsado waxyaalaha kamid ah inaan tilmaano biidinillaahi kariim soomka sharci ahaan waxa loo jeedaa ama laga wadaa الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع نية التقرب إلى الله تعالى روحوا إنه أفهيستو أو كاف هيستو وحو الباو حفورية لقبل على وقت طلوع الفجر الصادق
oo macnaha fajarku uu dilaaco ilaa qoraxdu ay ka dhacdo iyadoo ay la socoto niyatu taqarrub ila Allah azza wa jalla inuu ruuxu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaanayo camalka niyo iyo ikhlaas u samaynayo soomka haddii laga waayo tacriifta ama sharcigaas sida uu macnaha loo xadiday wax badan baa macnaha waxa weeyaan iska dhimahaya ama ma wajiri karaba oo ruuxu mufatiraadka hadduu ka dhowrsoonaan waayo soomkiisa waa burhaya waqtiga mufatiraadka laga dhowrsanayo waqti xadidan weeye intaas waqtigaas macnaha waxa weeyaan ruuxa la rabo inuu dhowrsado dhan waa inuu dhowrsan yahay oo ka dheeraado wax walba waxa furinaya waxyaalaha waxa furiyana insha Allah waxba laga yaabaa inaan ka gaarno oo ka sheegno niyada sidoo kale waa asaaska camalka weeye oo nabiga kaleey salaatu salaam uu tilmaamay inama al-a'malu bin-niyaat dii ruuxu iska afhaysto oo maanta dhanuuna waxba cunin laakiin niyadii taqarrubka meesha ay ka baxdo iyo dhawaanshihi Ilaahay uu dhawaanayay ikhlaaskii waxa weeyaan isaga soomkii sharci ma noqonayo waxa loo baahan yahay marka quyuuda in la helo oo ruuxu uu imsaak sameeyo mufatiraadka oo dhan waxa furiyo oo dhan uu ka fogaado iska ilaaliyo niyo iyo taqarrub iyo ikhlaasna uu sameeynayo camalka uu sameeynayo soomku walaalayaal wuxuu ka mid yahay taacaadka aadka u waaweyn oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhawaado oo ruuxu uu ku helayo maghfirada iyo dambi dhaafka Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo naarta ka fogeynayo xadiis Abu Hurayra radiyallahu anhu warinayo iyo Allah subxaanahu wa tacaala xadiis al-Qudsi weeyaan nabiga kaleey salaatu salaam Ilaahay macnaha u tiiriyay wuxuu leeyahay qaala Allah azza wa jalla kullu 'amal ibn aadam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnah leeyahay Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay camalka ibn aadamku uu sameeyo dhan asaga ayaa iska leh waxaan soomka ka ahayn soomka aniga iska leh anana abaalkiisa bixinayo abaal marinayo waxa leeyahay acmaasha kale dhanba waa Ilaahay subxaanahu wa tacaala baa leh adoonkuna waa kan la imaanayo macnaha adoonku uu sameeynayo soomkana waa sidoo kale jazaaha iyo abaal marintana Ilaahay baa bixiyo subxaanahu wa tacaala laakiin si gooniya waxa loogu takhsiisiyay meeshan ajarka lagu bixinayo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku bixinayo ayaa wuxuu yahay ajar aan xisaab lahayn oo si macnaha waxa weeyaan tashriif kale uu ku jiro ayuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala adoonkiisa u abaal marinaya sadarteed buu Ilaahay subxaanahu wa tacaala isugu idaafeeyay fa innahu li wa ana ajzi bihi wuxuu tilmaamay nabiga kaleey salaatu salaam was-sawmu junnah soomku waa gaashaan wuxuu gaashaan ka yahay cadaabka Allah subxaanahu wa tacaala oo ruuxa soomhay iyo soomkiisa macnaha waxa soom sax soomhay maalinta qiyaamada Ilaahay subxaanahu wa tacaala soomkiisi ayuu gaashaan uga dhigaya cadaabka macnaha waxa kaga gaashaamanaya waxa kaloo nabiga ka sugan fadaaisha lagu tilmaamay inuu nabigu leeyahay kaleey salaatu salaam xadiiska Abu Hurayra man saama ramadana iimanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi lawada xadiis baa saxiixanka ku imaadeen ruuxi sooma oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala asagoo ihtisaab Ilaahay darti u soomhay iimaan iyo rumayn uu rumaysan yahay in Ilaahay waxa uu sheegan uu ku waajibiyay in fadli Ilaahay subxaanahu wa tacaala dhexdiisa yeelay imtithaal amarka Ilaahay uu qaadanayo asagoo sida rumaysan ruuxi sooma ihtisaabna iyo Ilaahay darti u soomhay waxa loo dhaafaa bi nabiga kaleey salaatu salaam ma taqaddama min dhanbihi waxa kaloo nabigu sheegay kaleey salaatu salaam xadiiska Sahal ibn Sa'd wuxuu leeyahay nabiga kaleey salaatu salaam inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan jannada waxa ku sugan oo macnaha kamid albaabadeeda albaab la yiraahdo ar-rayyan yadkhulu minhu as-saa'imun bi nabiga kaleey salaatu salaam waxa ka galaya albaabkaas oo khaas u yahay dadkii suwaamta oo soomi jira soomka macnaha waxa weeyaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhawaanayay cid kale ka galaysa male la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum ruux kale ka duwan ayaga oo galaya ma jiro oo albaabka ka galaya waa tashriif la karaamaynayo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu karaamaynayo dadkii asaga dartii u soo soomay baabka magaciisa Rayyan baa la dhahayo waa baabka cokanaasha iyo dheregta oo maadaama ay soo oomeen oo ay adduunka ku soo haraadeen oo soomka ay u soo adkaysteen abaal markooda wuxuu noqday in Ilaahay jazo uga dhigo baabkaas cokanaanta iyo inayna marna oomin marna aynan haraadin inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku khaas yeelo wuxuu nabigu sheegay fadaaisha soomka kamid alayhi salaatu wasalaam inuu yiri nabigu alayhi salaatu wasalaam ida dakhala shahru ramadan futihat abwaabu as-samaa xadiiska macnaha waxa ku soo arorto kale abwaabul janna albaabada jannada ayaa la furaa soomku markuu soo galo bisha ramadan albaabada jannada la furaa oo waxay diyaar u tahay cidii macnaha waxa weeyaan waqtiga soo dhimata asagoo macnaha soomkii iyo ihtisaabkii ku jira inuu jannada Ilaahay subxaanahu wa tacaala u diyaariyo oo diyaarsan tahay وغلقت أبواب الجهنم جهنم البابده دنا waa la xiraa
ومعناه وحويان أسبابه وحياله لوجل هي وحي ربنا إله سبحانه وتعالى meesha ayuu macnaha waxa weeyaan uu ka saaraya ama yaraanaysa macnaha asbaabtii oo cibaadadii iyo taacaadkii iyo xeelihii Ilaahay loogu dhawaanayay ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala taysiirinaya وسلسلة الشياطين شياطينتنا waa la xirxiraa riwaayadka qaar baa tilmaamay kuwa maradada oo madaxaada dhibka badan oo umada dhibta inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka qabanahay macnaha xadiidku waa maxay asbaabtii ruuxa macnaha u sahli lahayd inuu cibaadaysto oo taacaysto وإلهي ودواده ودن بالله تيسيرنها وفضل إلهي سبحانه وتعالى ولذلك وذلك بشهر رمضان آثار نوع عاصة وإلهي النبي عليه الصلاة والسلام حديثك وكل شيء سي واضح حضار كيسا صومك مركي لقاره dadkii cibaadada ay ku adkeyd ku banaanada iska joogi jiray dadkii macnaha fuqarada iska cusla inay soomkii kulligood u tanaafusayaan oo masaajidu buuxsamayso oo amaakintii cibaadada meel laga istaaga la waayahay oo hanuun dadkii macnaha waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbigooda gelinhay waxa yala waxa laga qabtay waxyaalihii dhibahayay oo macnaha waxa weeyaan fasaadinayay oo dariiqa xaq ka leexinayay sawaariftii ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka qabtay sida darteed waa fursad cadiima oo aad u weyn ruuxu inuu ka faa'iideysto maalmahaas qaaliga ah oo qiimaha badan inta waxa dheer ruuxu markuu macnaha soomahayo wuxuu imtithaal iyo faroon macnaha uu la iimaanayaa inuu imtithaalo amarka Allah subhanahu wa ta'ala maxay Ilaahay subhanahu wa ta'ala soomka asaga farad yeelay ya ayyuhalladhina aamanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum Ilaahay wuxuu idinku farad yeelay bisha soomkeedii inaad soomtaan sidii ummadii idinka horeeyay loogu farad yeelay ruux marka soomku markuu soomahayo waxa soo dhanba waxa ka sii weyn ka horeeya wuxuu ruuxan uu qabanayaa waajib saaran oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu saaray oo rugni arkaantii islaamka kamid ayuu fulinayaa waa marka waa arin aad u qiimo badan weey inaad arkaantii islaamka rugni dhan oo kamid aad qabatid oo ku dadaashid oo aad sameeysid waana mid fadaaisha faraha badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka ratibay weey waxa loo baahan marka ruuxa muslimka ah soomka cadamadiisa inuu dareemo fadaaishaas faraha badan oo lagu sheegay inuu dareemo inuu u fahmo ama macnaha waxa weeyaan uu ku dadaalo soomkaas sidoo uga faa'iideysan lahaa sida ugu wanaagsan uga faa'iideysan karo inuu macnaha waxa weeyaan acmaasha khayrka dhan baa furan si gaar ah in acmaal nabigu si tilmaamay jira kaleey salaatu wasalaam ama uu sameyn jiray ku dadaali jiray waxbaan ka sheegi doonaa hadii Ilaahay na garansiiyo waxa kamid marka soomka xigmad loogu talagalay baa jirta oo aayadka quraanka laftooda ay cadeeyeen xigmada ugu weyn oo laga rabo waxa weeyaan la'allakum tattaqun kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun wa hadafka ugu muhiimsan oo soomku uu xaqiijinayo asagoo fawaa'id fara badan leh oo fawaa'idiisu ay aad u fara badan tahay oo ay kamid tahay fawaa'id ruuxa sixadiisa iyo caafimaadkiisa u laabanaysa oo ay kamid tahay ruuxdiisa fawaa'id u laabanaysa iyo macnaha waxa weeyaan inuu ku dhismo oo taqwada Allah xaqiijiyo oo ay kamid tahay fawaa'id ijtimaaci ah oo dadkii macnaha waxa weeyaan masaakiinta ah iyo muslimiinta walaalihiisa ahayd inuu dareemo gaajada iyo rafaadka iyo waxay ku nool yihiin laga yaabo adigu maalmahaas yarka inaad la rafaadid ama aad ku dhibtootid waa inaad macnaha dareentid kuwa aan weligood sida u rafaasan oo ay ku yartahay inay nolol fiican helaan inay jiraan fawaa'id badan marka dhan walba taabanaysa ayaa soomka laga helaa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu galiyay waxyaalahaas oo dhan marka fawaa'id laga helayo soomka ayay kamid tahay iyadoo fawaa'idaas oo dhan ay jiraan haddana waxyaalaha ugu muhiimsan oo ruuxa uu ka faa'iideysanayo soomka waxa weeyaan inuu taxqiijiyo Allah cabsidiisa cabsida Allah subhanahu wa ta'ala inuu naftiisa tahiro oo dunuubtii iyo macaasidii iyo waxyaalihii uu ku dhacay iyo macnaha waxa wax badan oo uu ka sameeyay oo kasbaday inuu iska nadiifiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u dhawaado oo ruuxdiisa iyo qalbigiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xiranto oo ruuxu wax badan oo uu haleeyo uu hagaajiyo la'allakum tattaqun faa'iidada ugu muhiimsan iyo xigmada ugu muhiimsan way waxa loo baahan marka bisha soom in macnaha waxa weeyaan ay faa'iidaas taxqiijiso oo faa'iidaas laga helay in cabsida Allah subhanahu wa ta'ala la xaqiijiyo soomka walaalayaal xaqiiqadiisu waxa weeyaan inuu ruuxu jawaarixdiisa oo dhan ay soomto oo ayna noqon kaliya cuntadii oo laga tagay cabitaanka oo laga tagay in badan oo muslimiinta kamid ah walil asaf waxa laga yaabaa in ay u fududahay inay ka tagaan cuntada iyo cabitaanka iyo shahwada gudashadeedii laakiin ay ku adkaato jawaarixdoodii inay dabtiyaan macnaha waxa weeyaan ay kontroolaan waana tan nabiga kaleey salaatu wasalaam uu tilmaamay xaqiiqada soomka
inay taa ka baxsan tahayna sida ahayn waxaa nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam xadiid abu daawuud iyo tirmidi ay soo saareen alimaam bukhaari abu daawuud tirmidi wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam man lam yadac qowla azuuri waalcamala bihi falaysa lilahi xaaja fi an yadaca tacaamahu wa sharaabah ruuxii aan ka tegin qowl zuur hadalka macnaha beenta ah iyo been abuuradka iyo inuu hadal xun ku hadlo iyo ku camal falkiisa riwaayad kale waljahl jahliga wax walba macnaha waxay tasarruf aan sax ahayn oo dhan baa soo galay ruuxan waxyaalaha ka tegin oo hadalkii xumaa iyo dhaqankii xumaa iyo tasarrufaadkii xumaa aan ka tegin falaysa lillahi xaaja fi an yadaca tacaamahu wa sharaabah wax ilaahay danuhu ka leeyahay ma lahan cuntadiisa inuu ka tagiyo cabitaankiisa inuu ka tago bimacnaa wax faa'iidaayo weyn kuma jirto inaad cuntada ka tagtid cabitaan ka tagtid oo shaawo gudashadii ka tagtid haddana wixii kale aad iska daaqaysid wax soom faa'iidaho macnaha soomkii kugu jira oo laga helayo meeshii ma lahan maxay marka xadiidku muxuu tilmaamayaa soomka xaqiiqadiisa markii aan rabno oo aan ajarkaas faraha badan raadinayno oo aan janno inaan ku helno aan raadinayno waa inuu noqdo soomku soom sharci ah oo waafaqsan shareecadii islaamka oo uu noqdo soom ruuxu jawaarixdiisa iyo xubnihiisa oo dhan uu macnaha waxa weeyaan uu ka soomo xadiid kale nabiga calayhi salaatu wasalaam uu kusii tilmaamay فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل هذه maalinta soomka ruuxii uu ku jiro maalinta soomkiisa ay tahay yuuna sameyn wax rafadka waxa lagu tilmaamaa waxyaalaha afcaasha xun oo dhan waxa kale oo lagu tilmaamaa wax sida gaar ah u taabanaya macnaha waxa weeyaan misaladii dumarka iyo wixii ku saabsan iyo maxaan ku yiraahdaa muqaddimaadkii jimaaca iyo wixii la mid ah oo dhan waxa kasta oo ficil oo xun oo noocaasa yuuna sameyn sidoo kale saqabka iyo maxaan ku yiraahdaa hadal dheerida iyo hadal xumada iyo waxyaalaha la midka ah oo dhan yuuna sameyn waxa kale oo iyadana kamid ah jahliga oo iyadu ka sii wada caamsan oo wax walba oo macnaha waxa weeyaan khilaafsan sharciga iyo hadiga inuu ruuxu uu sameeyo yuuna sameyn buu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam fa in shaatamahu axadun aw qaatalah falyaqul innii saa'im haddii macnaha waxa weeyaan ruux uu ficil xun kula soo macnaha waxa weeyaan ku soo xadgudbo oo uu la qasdo oo wax xun macnaha uu la soo doonto isagu waa inay noqoto qowlkiisa iyo waxa uu macnaha qofka uu ku radinayo inuu yiraahdo waan soomanahay innii saa'im yuuna la caytamin oo aflagaadadii intii la yiri oo kale yuuna sameyn yuuna hadal xun asagii u bedelin yuuna macnaha waxa weeyaan wixii jahliga qofkan uu sameeyay la qofkan soomkiisiiba ku ciyaaree yuuna sameyn ha ka roonaado ha yiraahdo waan soomanahay macna weyn baa ku jirto cajzi iimadiida hay inaan iska ka celiyo ama hadalkii uu munaasibka aan ku yiraahdo ama ana argooste waxa ii diidahaya inaan ilaaliyo xurmada soomka iyo qiimaha soomka uu ku fadhiyo iyo ana fadli iyo wanaag ilaahay ka raadinayo darteed ayaanan u sameeyeen inaan kula ficiltamo ama aan ka aarsado ama wixii aad igula kacday oo kale aan kula kaco innii saa'im ha yiraahdo waa adab marka aad u qiimo badan oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu nabarahayo nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale ku yiri fala yaj'al ahadukum yawma sawmihi ka yawmi fitri ruux idan ka mid inuu ka yeelin maalinta uu sooman yahay maalinta afurnaayo kale xurmo dheeraad ay leedahay maalintan aad sooman tahay ayadoo hadalka xun uu xaraam yahay oo kadibku xaraam yahay oo been abuuradku xaraam yahay oo namiimadu xaraam ay tahay oo wax xun oo dhan ilaahay subxaanahu wa ta'ala fi jamiic al-azmina uu reebay haddana maalinta iyo waqtiga aad ku jirto xurmo dheeraad uu leeyahay oo amaakinta xurmo dheeraad leh oo dambiga mesela lagu sameeynayo xaramka iyo meelaha amaakin muqaddasa way ka jurmi weyn tahay dunuubta lagu sameeyo banaankeeda oo maalmaha qaarkood fadiilada ilaahay subxaanahu wa ta'ala fadliga dhexdooda u yeelay way ka duwan tahay maalmaha kale macnaheedu waxa weeyaan marka ruuxa muslimka ah inuu ku dadaalo inuu soomkiisa ilaaliyo oo wax walba oo xun uu ka ilaaliyo oo xubnihiisa oo dhan ay soomaan ruuxa jamiic aljawaarix inuu ka soomo carabkiisu ilaalinaya indhihiisu ilaalinaya qalbigiisu xumaanta ka ilaalinaya ficil xun inuu ku kaco iska ilaalinaya waa ruux macnaha waxa weeyaan asaga dhan iskontaroolaya waana soomka fawaa'ida loogu talagalay bay ka mid tahay in tarbiyada laga faa'iideysto oo ruuxu markuu sida ku tarbiyoobo oo soomkiisa uu isdabtiyo inuu waqtigiisa dambe uga faa'iideysto inuu noocaas intibaadka u yeesho naftiisa uu xakameyn karo waxa ay macnaha waxa weeyaan xumaanta ay ku kacayso uu ka celin karo una u macnaha saamixin naftiisa inay hogaamiso
حيله وحو أودو يشي إنه كتغلب وكأت كذا نفتيسه هجاميه ووقتك على رب العالمين إلى وقت قاس عبيتان كوديده عنيتان كوديده شهوة جودشدي وديده وحول بحن وديده سيدا مركو بيلكو سوتشيرو توبر أضف في عني تربية أضف في عن بقاطعه وهذا أوده إنه نفتي سحكمية وكات كاظو هذه لكن صوم كاجو إسكاها صوم عن نفر لهين أو جوارح ذو أين السومين أو وحول بحن السمين شرتاد إسكسي سمين يسد كدي من أدبيه عبيتان كات كتكتيد هذا مد النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام وح معنا يوين يكون صمين يصوم لهن وحنقدر إن هالمسألة مبطلات كصيامك أما صومك وحيالها برية روحه وحلو بهاي صوم كيسي سان شاغني جوارح دي صار إنه صومته وصوم كيس كير عليه وحول باحن سجارة هانات وحيالها مبطلات كشرع وعدي وصومك من أساسه برين هي وإنه كير عليه حكم ذا ونصوص تأتي المنطي إنه روحه في نهار رمضان وعبه أما وعنه انتظي عبتان كاللبضبة وقت رمضان كمال انت اللي قتشره لما وقال أيضا القرآن كأوحي إلهي سبحانه وتعالى ونوتي المام هي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر القرآن كنت المامي وقت انتظي اللي وقال لي هي واهمينكي اسكعنا اسكعبا maxaan ku yiraahdaa xaasaskiina iyo shahawaadkiina iska guta dhima lahan laakiin waa waqtiga hatta yatabayana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad hadii waqtiga la gaaro oo tuluuc al-fajr sadiq la gaaro khalaas waa la afaysan haya thumma atimmu as-siyama ila al-layl soomkii marka dhameystira ilaahay minki laga gaaro qorraxda ay dhacdo nabiga kaleey salaatu salaam sidaas oo kale iyo xadiiska ku tilmaamay waxa loo baahan marka ruuxu inuu ka dhowrsado cabitaanka iyo cunitaanka oo soomkiisa ka ilaaliyo fi nahar ramadaan inuu ama cabba ma cuno waana waxyaalo inta badan dadku ay yaqaanaan muslimiinta ay garanayaan waxa kamid ah soomka burinaya jimaaci oo waliba waxa dheer soomkii markuu buro qadihiina laga rabo kafaarana laga rabo kafaaro waliba aad u adag oo quraanku uu tilmaamay in macnaha waxa weeyaan ruuxii uu cidqu raqaba sameeyo inuu qoor xareeyo ama uu 60 bari oo isku xigto uu soomo ama 60 shakhsan uu quudiyo وكفارة أدو عضك حديث أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول ننكي ويم النبي عليه الصلاة والسلام في نهار رمضان تحاسكي سكون على النبي ويم يصور على علها يلوانها لك سمي كدم من النبي وشاق عليه الصلاة والسلام وحسمي نبي نوامر عليه الصلاة والسلام إنه كفارة ويقول لا إما ذو قلت صومك مركب برونيسا وحلم إذا وحيلا صومك بريئة وحي أكلي شرب مباشرة عنها لكن معنيه صوك على الصمين هاي وقوة حوك روح أويه لهي سيدا معناه وحويان في الانبوين كان فقد الروح وضو قاطه علماء وحي ليهين وحي لا هاي معنيه أكلي الشربك إلا الشربك عنتانك يعبتانك ضنبع لقالها وحال الربي إن الشركة دي في سوء ديق لسوء روح قوة حوك أوياش انتي وكلا دي مركا وحويان حيد لقاسي ولمد وصومك وبرهايا وحكم ذا حديث آية المعتنى عليه الصلاة والسلام متقى الروح إنه كسسا كانوا وأصله معناه ودونته فعل كيسة وكل ماذا والنبي عليه الصلاة والسلام وتلمامه روحي بتقوى ساق هذا قضاء لقمة لهن لكن روحي اسكم التشيه فعليه القضاء أما فليقضي مركزهم وحيالها بريئة كم تروح إنه متقى صوي اسكك أما فعل وليه وكل ماذا ومعناه وحويان أما وحياله ورصدها النقطة أما فوق عنته وقليها النقطة أما وحيالها نوع عصا كلا وحيالها سمك بريئة حكم ذا haddii gabadhii caadada ay ku dhacdo ama dhiigga xaadka uu ku dhaco ama dhiigga nifaaska uu ku dhaco wuxuu noqonaysaa waxyaalo soomkii burinahay oo hadhow qadihii ay ku macnaha uu ku waajibahayo in la imaato waxyaalahaas waa waxyaalaha adiladii iyo nusuusta ku soo arooray oo cad in soomka ay burinayso waxaana loo shartiyayaa ashyaadaas oo dhan in ruuxu uu yahay marka koobaad ruux daakir ah oo aan hilmaansanayn hadduu hilmaansan yahay oo is hilmaamay soomkiisa waa u jira waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiix ku sheegay man nasiya huwa saa'im fa akala wa shariba falyutimma sawmahu fa inma at'amahu Allah wa saqah nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ruux is hilmaama isagoo sooman kadibna iska cuno iska cabba soomkiisa dhamaystirto ilaahay baa quudiyay oo waraabiyay macnaha loo qaban maayo rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana إله أنه قبن دي أن هلمانه أما خطأ أن كل أنه قبنه معناه وحويان شيء
ilaahayna subxaana wa tacaala addoommadiisa uu ka aqbalay oo nacam buu yidhi macnaha laydiin qaban mahayo. marka waa inuu ruuxu marka soomku uu burahayo oo ashyaada noocan uu ku burahayo waa inuu marka koobaad uu yahay ruux xasuusan soomkiisii, hadduu isilmaamo kuma jirto. labo waa inuu yahay ruuxu caamid ee unu mukhti ahayn. caamid waxaa laga wadaa wuu u qastay inuu shaygan sameeyo oo soomkiisii isagoo xasuusan buu u qastay ficilkii. hadduuna macnaha caamid ahayn baa meesha ka baxaysa. caamid hadduuna ahayn ayaa meesha ka baxaysa oo buuna qasdin. waxaa soo gelahaya camdiga macnaha waxa weeyaan mukhti hadduu yahayo soomkii maalan wuxuu moodahayay in qoraxdii dhacday oo kale, sida saxiixa ah qoraxdii inay dhacday buu moodahayay, wuu iska cabay, kadibna khatigiisii baa macnaha waxa weeye soo baxay inuu khaldamay. waa masale khilaafkii uu ku jira, laakiin culammadu waxay leeyihiin daliil ahaan moodaa inuu xoog badan yahay inuu ruuxa noocaasa mukhti yahay oo uu gafay soomkiina macnaha waxa weeyaan uuna ka jabino soomkiisi inta dambe ayuu macnaha afhaysanhayaa, soomkiina waa u jiraa. xadiidka asmaa ayaana ku soo arooray. waxaa ka mid ah oo shardig saddexaad ah markii soomku uu burahayo ruuxu sidaa soomka uga burahayo inuu mukhtaar yahay oo isagu ficilka doortay. laakiin haddii ficilka lagu ikraaho oo lagu khasbo oo wax macnaha waxa weeyaan qasaba lagu sameeyey biyaha in lagu waraabiyo ama lagu khasbay, soomkiisi waa u jiraayo ma burahayo. waxyaalahaas marka waxyaalaha buriya soomka shuruudaas ayna ku buriyaan markii laga helo waa in marka ruuxa muslimka soomkiisa uu ilaaliyo waxyaalaha uu ka ilaaliyo oo soomkiisa asagoo garanayo xasuusan oo mukhtaar ah macnaha aan la khasbin oo macnaha waxa weeyaan aan mukhti ahayn soomkiisa inuu macnaha waxa weeyaan wax u geysan mufatiraad oo afurin haya ayaa loo baahan yahay. waxyaalaha aan wax burin oo macnaha waxa weeyaan ruux soomka aan ka burinayna waxaa ka mid ah ruux hadduu waagu u bariyo asagoo janaabadii qabo oo kale, xadiis baa ku soo arooray nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaa samayn jiray, wax dhiba ma lahan. waxaa ka mid ah taqbiilka inuu islaantiisii xaaskiisa dhunkado oo kale, iyadana inaysa burinayn, xadiis iyo nusuus bay leedahay. waxaa ka mid ah ruuxu inuu isrusheeyo ama biyo iyo wax lamida uu isku daadiyo ama isku qaboojiyo ama qubaysto, soomka ma burinayso. madmadada iyo istinshaaqa ka mid ah inuu luqluqdo ruuxu markuu weysaysanhayo oo uu sandaarsado, soomka ma burinayso. nabigu laakiin wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam mubaaliq fi listinshaaq ilaa an takuuna saa'iman. istinshaaqa iyo sandaarsiga iyo markaad samaynaysid ku xeel dheerow haddii aadan ahayn nin sooman. haddaad sooman tahay marka xeel dheeraanshaha iska ilaaliya inaad macnaha waxa weeyaan ku xeel dheeraatid, laakiin waa la ogol yahay inaad luqluqatid, inaad macnaha waxa weeyaan istinshaaqsatid, waa la ogol yahay. waxaa ka mid ah siwaagii cadaygii oo ruuxu inuu cadaysado waqtiga uu sooman yahay, ama gelin dambe ha noqoto ama gelin hore ha noqotee sida saxiixa ah inuu cadaysan karo macnaha waxa weeyaan waqti walba ayna dhib lahayn. ruuxii marka waxa weeyaan waxyaalaha noocaas oo kale dhib ma lahan. candhuufta oo macnaha waxa weeyaan ruuxa dad waxaad arkaysaa isku dhibaya, ayaguna waxyaalaha wax buriya ma ahan. waxyaalahaas marka waxa weeyaan waxyaala aan mushkilo lahayn. ruuxana waxaa loo baahan yahay inuusan xaraj isgelin oo diintu waa yusriya, wixii ilaahay fududeeyo subxaana wa tacaala waxba inuusan isku adkayne uu yusrigeeda u qaato. inahaasaan marka rabay inaan macnaha qaybta hore aan ka dhigna haddii ilaah yidhaahdo. qayb labaad ayaa jiri doonta insha allahu tacaala, bacd alaxkaam dadka ahlul acdaarta ah ama cudurdaarka leh iyo waxyaalaha macnaha waxa weeyaan u bannaan iyo dadka loo ogol yahay fitriga iyo inay afuraan iyo waxyaalo lamid ah aan insha allahu tacaala kaga hadli doono. hada wasala allahu calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin.